بسم الله الرحمن الرحيم waxaan halkan ku bilaabayaa barnaamij cusub oo taxano noqon doona oo aan u bixiyay weydiin iyo warcelin wuxuu ugu dhashay kadib markii aan fariimaad u fara badan oo su'aalaha aan ka helay dhalinyaro fara badan oo igu soo diray emailkayga iyo bogeyga Facebook aan ku leeyahayba waxaan jeclaystay inaan toddobaad walba aan ku dhex wado barnaamijka fikradii buug oo isna aan toddobaadla ka dhigo toddobaad walba insha Allah waxaan ku dul istaagi doonaa mid kamid ah su'aalaha la soo weydiiyo aan isku dayo insha Allah inaan jawaabahooda dhalinyarada aan halka uga tabiyo su'aasha maanta waxay ka timi dhalinyaro aad u fara badan runtii kadib markii ay daawadeen barnaamijkaygii aan kaga hadlayay muuqaalkii aan idhaahday aan kaga hadlayay akhriska iyo faa'iidooyinkiisa dadna su'aalihii ugu faraha badnaa iga soo laabtay waxaa ka mid ahaa oo ugu weynaa runtii sideen u noqdaa qof wax akhriya sideen u samaystaa caado wax akhris oo aan akhriska isku jeclaysiiya waxaan jeclahay markaa inaan barnaamijkeena maanta aan idinku soo gudbiyo 5 tallaabo oo aan isleeyahay qofkii dabaqa way caawinaysaa waa 5 tallaabo oo anigana i caawiyay runtii dad badan oo aan kula taliyana ku liibaanay tallaabada ugu horeysa haddaad u baahan tahay inaad qof noqoto wax akhriya leh caado wax akhris waxaad u baahan tahay inaad yeelato hadaf wax walba oo muhiim ah oo qofku uu qabanayo ma wadi karayo haddaanu lahayn hadaf sababta kugu xambaaraysa waa inaad taqaano maxaad rabtaa inaad wax u akhriso haddaadan lahayn sababaad wax u akhrinayso runtii way adkaanaysaa inay ku noqoto wax akhrisku inuu ku noqdo caado inay ku noqoto isweydii maxaad u rabtaa inaad wax u akhriso talaabada labaad waxa weeye bilow wanaagsan inta badan dadku marka ay bilaabayaan wax akhriska sidaan hore soo tilmaanayna akhrisku waa wax adag marka ay bilaabayaan waxay ku bilaabaan kutub weyn waxay ku bilaabaan mawaadiic kala duwan ama mawduuc akademiga oo ka yara weyn kutubtu qaar waa ka level hooseeyaan qaar waa kula heer qaarna waa ka heer sareeyaan marka ku bilow mawduuc fudud ku bilow talabaad mawduucaad jeceshahay oo ku xiise gelinaya ku bilow si ay caadada wax akhrisku ay kugu fududaato muxuu ahaa la qabsigeeda arinta saddexaad waxaad ku bilowdaa buug yar buug weyn haddaad xitaa ku bilaabaysid waxaad u baahan tahay inaad yaryarayso oo aad 10 page 5 page aad ka dhigto laakiin waxaan aad kugula talin lahaa inaad ku bilowdo buug aad u yar talaabada saddexaad waxa weeye ku xidhidi caado hore oo aad lahayd sidaan hore usoo tilmaamayba wax akhrisku waa caadadana saynisyahannadu waxay yidhaahdaan waxay ka kooban tahay 3 qaybood q oo ah wax kiciya routine oo ah ficilkii qofka uu sameynayay iyo reward oo qofku wixii uu ka helayay iyo abaalgudkii uu ka helayay haddaba caado hore oo aad lahayd ku xidhiidhi wax akhriska waayo waxay ku noqonaysaa q oo markastoo aad caadada aad horey u lahayd aad samayso waxaa kugu dhalanaya inaad wax akhriso tusaale qofku markuu hurdada ka soo kaco waa caado salaada subax markuu tukado waa caado ta duhur waa caado shaqada markuu ka yimaado waa caado caadooyinka aad leedahay ee dayliga ee joogtada ee maalin walba samaynayso mid ka mid ah oo aad is leedahay tamartaaduna iyo nashaadkaagu kor way kacsan tahay ku daba xidhiidhi markastoo aad caadada hore aad lahayd aad samayso waxaa kugu dhalanaya inaad wax akhriso talabaad maalin walba joogtay waliba waxaa aad u muhiima inaad 60ka cisho ugu horeeya ee aad caadadan wax akhriska aad samaysanayso inaad joogtayso hadday maalin ku dhaafto maalin labaad ku dhaafin haddii kale dib waa inaad usoo bilowda caadadii waa caadadu waxay ku samaysantaa oy ku abuurantaa muddadana saynisyaanadu berigoor waxay dhihi jireen ilaa iyo 30 cisho la sheegi jiray laakiin waxa weeye waxay ku xidhantaa hadba caadadu inta ay la eg tahay fudaydkeeda iyo culayskeeda ay ku xidhan tahay akhrisku wuxuu ka mid yahay caadaadka aad ku adag marka waxaan kugula talinayaa in aad muddo 60 cisho ah aad joogtayso talaabada afraad waxa weeye samayso dhiirageliyayaal dibadeed maxaan uga jeedaa
qofku inuu garto hadafka wax uu akhrinayo waxa weeye waa dhiirigelin gudeed weeye, waa internal motivation ayuu qofku ka helaa. laakiin qofku sidoo kale wuxuu u baahan yahay maadaama uu caado abuuranayo aad u adag, wuxuu u baahan yahay external motivation, wuxuu u baahan yahay dhiirigelin dibadeed buu u baahan yahay. dhiirigelin dibadeed waxaa ku noqon karaya inaad yeelato saaxiibo wax akhriya. saaxiibada waxaa la yidhaahdaa qofku waa average wuxuu noqdaa 5 qof uu waqtiga ugu faraha badan la qaato. la shak 5 qof ee kugu sokeeya ee aad waqtiga faraha badan la qaato dii ay yihiin dad aan waxba akhrinin, adiguna waxba akhrin maysid, samaysan karin maysid. aad bay u adagta waayo saaxiibadu way isa saameeyaan. samayso saaxiibo wax akhriya. dhiirigeliyaal dibadeed sidoo kale waxaa ku noqon karaya inaad booqato goobaha buugaagta lagu soo bandhigo oo kale, librariyada inaad booqato, inaad muxuu ahaa buug kalaabyada aad ka mid noqoto oo aad ku biirto. waxyaabaha waxaa ka mid ah inaad dhegaysato oo in badan aad dhegaysato sooyaalka cudamadii ku caanbaxay wax akhriska. inahaasoo dhan waxay kaa caawinayaan inaad hesho dhiirigelin aad muxuu ahaa aad ku sii joogtayso caadadan wax akhriska, weliba inta ugu horeysa 60 cisho ee ugu horeeya. tallaabada shanaad ee aan kugula talinayo ee ka qayb qaadanaysa inaad abuurato caado wax akhris waxa weeye ilaahay la kaasho. quluubtu waxay ku jiraan gacmaha Eebbe subxaanahu wa tacaala, isagaana siduu doono u gala oo u rogroga. marka inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala kugu sugo oo dadaalka aad bilowday iyo hadafka aad leedahay iyo yoolka aad doonaysa inaad gaadho, inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala kugu sugo, ilaahay subxaanahu wa tacaala la kaasho. dadaal kasta iyo wax kasta iyo juhdi kasta oo aad samayso haddaanu ilaahay subxaanahu wa tacaala ku garab taagnayn way adag tahay inaad hirgeliso. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. وحوجه الرياض هلاينس وحوي وأبروتش كذا يقابك ذو وجهيسو يددال كذا هلاينسا مركا وحول بعد ونأكسن وهدونيسو إناد كلية عادة وحغرس كلية ما وحول بعد دونيسو إناد أتقادو هدف كستو الله ذا حي إلهي سبحانه وتعالى لكاشو. هذا شنتي قطب صوروريو. tallaabada koowaad waxay nidhi waxa weeye inaad hadaf yeelato, sabab aad wax u akhriyayso waa inay jirto. wax walba sabab bay u baahan yihiin. tallabaad waxa weeye inaad si wanaagsan aad u bilowdo buug yar, mowduuc fudud, mowduuc aad jeceshahay oo aad xiiseynayso. ta saddexaad waxa weeye inaad caadada wax akhris aad doonayso inaad abuurato aad ku xidhiidhiso caado hore oo aad lahayd si ay kugu fududaato aad maalin walba aad u xusuusato. sidoo kale waxay nidhi inaad joogtayso muddo 60 cisho ah. tallaabada afaraad waxay nidhi waxa weeye inaad yeelato dhiirigeliyaal dibadeed, saaxiibo wax akhriya inaad abuurato. sidoo kale inaad meelaha buugaagta lagu soo bandhigayo aad tagto, librariyada aad booqato, naadiyada wax akhriska aad ka mid noqoto, muxuu ahaa sooyaalka dadkii cudamada ahaa ee wax akhrinta ku caanbaxay aad noloshooda baadhbaadho aad dhegaysato. tallaabada ugu dambeysa ee shanaadna waxaynu nidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala aad la kaashato. waxaan rajeynayaa 5 tallaabo haddii aad qaado inaad yeelan doonto caado wax akhris. aad baad u mahadsantihiin dhegeysiga. wixii su'aalo aad qabtaan boggeyga facebooka ama instagramka ama youtube-ka waad igu soo hagaajin kartaan haddii ilaahay yidhaahdo.